kulan dhaqameed ay soo qaban qaabisay ururweynaha haweenka ee Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garowe sida uu nagu soo waramayo wariyahana Cabdiqani Axmed. ururka haweenka Puntland ayaa 3 bisha labaad u aasteeyay inay noqoto maalinta dhaqanka haweenka Puntland waxaana kulan maanta ka dhacay Garowe lagu soo bandhigay qalabka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. waxaa kulanka ka soo qayb galay wasiiro xildhibaan ururada haweenka 9 gobol ee Puntland iyo marti sharaf kale. gudoomiyaha ururka haweenka Puntland Khadro Warsame Jaamac ayaa sheegtay in haweenka Puntland looga baahan yahay inay ku dadaalaan ilaalinta dhaqanka iyo hidaha Puntland iyo ka Soomaaliya. dad nagama maqnaan u maleynayna maskaxdaan badan iyo caqligaan badan iyo aqoontaan badan oo aan hidiya dhaqanka gelinay gabdhaha Puntland ay geliyeen oo goboladii 9 gobol oo Puntland wasiir iyo xildhibaanayaan meeshaan waa ku dhan yihiin annagu waxaan soo 3 barnaamij baanu ka hadlaynaa hadaan ururka haweenka oo aanu soo bandhignay maalinta 3 Febraayo oo kasta gabar kasta oo Puntland inay waxay samaysato gacanta ka samaysato ama wixii indiya dhaqanka ah inay Febraayo 3 sanad walba soo bandhigto ayaan rabnaa wasiir inaan noogu daafurto wasiir iyo xildhibaan halkan waxaan ku soo bandhignay ama aanu sameynay wasaaradda waxbarashada Puntland iyo wasaaradda federaalka oo waxbarashada iyo ururka haweenka ayaa waxay iska kaashadeen inay ka qayb galaan afka Soomaaliga tartankiisa iyo hidiya dhaqanka ee Soomaaliya waxaanu meesha yimid 6 dhibcood baa la keenay 6 dhibcood ururka haweenka 3 bay qaateen ururka waxbarashadana waxay wasaaradda waxbarashadana 2 bay qaateen Soomaaliya qaar ka mid ah haweenka ka soo qayb galay shirka ayaa soo jeediyay suugaano kala duwan oo kala xiriira dhaqanka Soomaaliyeed. haweenka Soomaaliyeed oo aan kala hinayn hablaha Soomaaliyeed oo aan kala hinayn hablaha yaga reer Puntland yaa hawaysan kara hidaya dhaqanka iyo hawshan ay qabteen hananka wanaagsan iyo heerka ay galaan hiba ilaah siiyay waa hooyo lagu hubaa faanin mayo haddii aan idin fasilo galolka faraqisa hablihii fanaysan jiray kabada laga feeray quruxdeeda lala fajacay duflaydiyo hohobta hal caday ka daabacaan dabayshu ma daarto rugta daaha looga dhigo iskuul uma gelinin oo aayad kama aqriyin ee aqoontooda ilaahay bay ku mahadiyeen agabka hoyga markay soo asaawidaan seeska hoosiyo markay sarabka soo xiraan dhiga iyo loolka aqalka isu dheelitiran dhigo dib idin xasuusiyo ajandaha shirku wuxuu ahaa soo dhaweyn loo sameeyay gabdhihii 10 ahaa ee ka qayb galay carwadii lagu soo bandhigay Muqdisho gabdhahaas oo ka kala socday 5 kamid ah 9 gobol oo Puntland sidoo kale waxaan kaga hadlaynay oo ugu talagalnay shirkan isagana in aan u aqoonsano maanta oo ah 3 February sanad kasta inaan xusno hidaha iyo dhaqanka ururada Puntland oo ururka haweenku uu soo agaasimo maalin kasta oo maanta ku beegan. wasiirka arrimaha gudaha Puntland Axmed Karaash ayaa ku amaanay haweenka doorka ay kaga jiraan dhaqanka Puntland wuxuuna ku buuriyay in loo baahan yahay dhaqankan kor loo qaado. maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay annagoo maxay haytay sidii xildhibaan cali sheegay runtii anu mii baan ku dhashay kuna weynaaday xitaa magaalooyinka markaan joogayna fasaxyadayda caado waxaan lahaa mii baan iman jiray alaabta halka taala badi waan wada garanaya ama waan wada isticmaalayba badidooda inayow ka dambeeyena runtii qaar baaba huuy ahaan jiray bariyo dhowdaan meelahan duurkan joogay huuy ahaan jiray marka aad iyo aad baan waxay galaan iyo waxay gudaan alaabtani aan maxay tahay u garanaya marka waan ugu mahad celinayaa dumarka soo sameeyay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waan oogahay dumarkeenu inay waxa iyo wax ka badan bay yaqaanin. Cabdiqani Axmed Maxamed Cabdiqani fantastic Carlson TV Garowe.